kulankan ay iskugu yimaadeen golaha deegaanka ee maamul goboleedka Khaatumo iyo qaar kamid ah suxufiyiinta ka howlgasha magaalada Buuhoodle ayaa waxay ku dhameeyeen khilaaf muddooyinkan soo kala dhexgalay golaha deegaanka iyo suxufiyiinta ka howlgasha magaalada Buuhoodle. kulankaas oo ay ka soo saareen qodobo muhiim ah waxaana ugu horeyntii kulanka ka akhriyay qodobadii ka soo baxay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Khaatumo Maxamuud Sheekh Cumar. ujeedu soo kala dhexmaray golaha deegaanka iyo bahda saxaafadda qaarkeed labada dhinac waxay ka wada hadleen waxyaabo badan waxyaabihii khilaafka keenay kadib wada hadalka waxaa lagu dhexdhexaadiyey labada dhinac oo ay ka soo qayb qaateen dhinacyo kala duwan. waxaa lagu guuleystay in heshiis laga gaadho dhammaan waxyaalihii ay isku maandhaafeen. labada dhinac waxay ku heshiiyeen qodobada hoos ku qoran. 1. golaha deegaanku wuxuu raaligelin buuxda ka bixiyey wixii khalad ah ee bahda saxaafadda qaarkeed sheegatay. 2. laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 3 February 2014 waxaa dhammaaday khilaafkii soo kala dhexgalay bahda saxaafadda iyo golaha deegaanka. golaha deegaanka iyo saxaafaddu waxay u wada shaqayn doonaan sidii ugu wanaagsan ee ay u wada shaqayn jireen awal horeba. mahadcelin. labada dhinac waxay si wada jir ah ugu mahadceliyeen intii ka soo qayb qaadatay wadahadalka iyo kamira dhalintiisa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaa isaguna sidoo kale halkaas ka hadlay una mahadceliyay suxufiyiinta iyo golaha deegaanka gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee maamul goboleedka Khaatumo Maxamuud Cali Faarax. bismillaah anoo ku hadlaya afka golaha deegaanka waxaanu qaadanay soo dhaweynay heshiiskaas labada dhinac ee ah golaha deegaanka iyo saxaafadda qayb ka mid ah. khilaafkaasi waa soo afjarmay waa dhammaaday waxaana ku heshiinay sida uu akhriyay agaasimaha guud. markaa saas weeye arrintu khilaafkaasi waa la soo afjaray waa dhammaaday. dhanka kalena waxaa isaguna halkaas ka hadlay Khadar Awl Ismaaciil oo agaasimaha idaacadda Daljir xarunteeda magaalada Buuhoodle ahna gudoomiyaha suxufiyiinta magaalada Buuhoodle. salaanka bacdi waa sida la sheegay qodobadaas waa agaasimuhu akhriyay ayay isku raaceen kuna heshiiyeen bahda saxaafadda intii uu khilaafku soo kala dhexgalay iyo golaha deegaanka sidaas baanu ku qaadanay aad baanu ugu mahadnaqaynaa intii ka soo shaqaysay. sidoo kalena waxaa ka hadlay kulankaas Saleeman Dheere oo ah musharax u taagan xilka madaxtinimada ee maamul goboleedka Khaatumo. oo marna golaha deegaanka u taga oo yiraahdo tanaasula marna u taga saxafiyiinta iyaga aniga marqaatiya aad iyo aad baan mahadinayaa mar haddii labadii qolob ogolaadeen in la wada hadlo in dadka loo khidmeeyo shaqadii meel laga wado insha Allah tacaala waan ku boorinayaa. waxaa isaguna sidoo kale soo dhaweeyay heshiiskan ay wada gaadheen golaha deegaanka ee maamul goboleedka Khaatumo iyo qaar kamid ah suxufiyiinta magaalada Buuhoodle. wakiilka uga howlgala magaalada Buuhoodle TV-ga Soomaali Channel Cali Cismaan Cali Dhagjar oo haddii anagu aan nahay bahdi saxaafadda inta badan golaha deegaanka khilaaf u dhex yaalay khilaafku waa dhammaaday sida uu sheegay agaasimaha guud ee u akhriyay ayaan u qaadanay anagu go'aamadaas aanu laba dhinac haddaan nahay aanu inta badan soo wadnay. hadda kadibna waxaan ku shaqayn doonaa sidii hore aan wada shaqayn jirnay. waan soo dhaweynaynaa heshiiskaas ku dhammaaday wanaagga iyo guusha. waxaan leeyahay saxaafadda iyo golaha deegaanku waxay u wada shaqayn doonaan sida ugu wanaagsan ay u wada shaqayn jireen mana kala maarmaan oo waxaan ku tilmaami karaa indhihii wax lagu arkayay iyo gacantii wax laga qabanayay. gacantii indhuhuna ma kala maarmaan indhuhu gacanta wax ma qabato waxa indhuhu arkaan bay qabataa. kulankan ay wada yeesheen golaha deegaanka ee maamulka Khaatumo iyo suxufiyiinta ka howlgasha magaalada Buuhoodle ee lagu xalinayay khilaafkan muddooyinkan dambe soo kala dhexgalay golaha deegaanka iyo suxufiyiinta ka howlgasha magaalada Buuhoodle ayaa wuxuu ku soo dhammaaday jawi aad u wanaagsan. Maxamed Cali Bile, telefishinka qaranka Soomaaliya, magaalada Buuhoodle.